waxaa xaruntan VOA-da ee magaaladan Washington ugu soo booqday gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Diriye Samatar. Gudoomiyaha waxa aan ka wareysanaynaa doorashada bisha Janaayo ka qabsoomaysa maamul goboleedka Puntland. ugu horeyntii gudoomiye soo dhawow bal haddii aan ku weydiiyo waxaad iga warantaa musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka Puntland. dad badan baa tartamaya madaxweynuhuna xaq buu leeyahay inuu tartamo shalayna wuu tartamayo waa la doortay maantana inuu tartamo xaq buu leeyahay haddii la dooranayo iyo hadduu waayayana ummadda reer Puntland iyo dadka ay soo xushaan wax dooranaya bay ku xiran tahay laakiin ka sokow isaga marka xagga la iska dhigo dad fara badan oo musharaxiina oo hadda tiradoodu aad u badan tahay ayaa jirta oo maxay ahayd kolleyba dhowr iyo 10 gaaray marka inay ka sii bataana waa laga yaabaa in ay tanaasulaan oo dhahaan warweyn fara badan lahayn inuu isku xishoono oo dadka yayna shitayna inuu baasha dhin oo in kooban soo hartana waa wax dhici karta laakiin kolleyba nin walba hankiisa iyo wax uu la imanayo weyn ogaan doona laakiin waa gartay doorasho noocee ayaa la qorsheenayaa bal inay ka dhacdo Puntland annaga taanu qorsheenaynaa waqtigan ma aha waa waqti dheer waa hawl la rabo inay socoto waqti dheer waa nidaamka asxaabta badan ummadda in la fahamsiiyo in la gaarsiiyo waa teeram dheer weeye wax January iyo sanadkan iyo wax qabsoomaya maaha waxay u baahan tahay waa bilaabaynaa bilaabidaasina waa waqti dheer wayna soconaysaa waanu nasleenahay waa la gaarayaa inkastoo oo marar badan oo hore ay ahayd in la qabto oo aysan siday u ahayd aysan u fulin haddana biidnillaahi kariim wixii aan laga harin mar baa la helaa Puntland waxa ay soo jirtay muddo 20 sano ah ilaa ay haatan maysa ka suuroobin inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah marka maxaa idin ka hortaagan arintaas inay dhacdo horta waa mahadsan tahay Soomaalida waxay ku maamulada geed walba in gubtaa waa hoostaal Puntland waqti badan ha dhisnaato laakiin problemka iyo dhibaatada iyo xaaladaha jira Soomaali un bay kala mid tahay Soomaalina abiyo hooya wada dhalay waxba isma dheera waa isku tabar waa isku itaal waa moogtahay waxba ma kala foga marka problemada uun haysta waxaan isleeyahay haddii uun la isku dayo sidaan markii horeba uu yiri way socon lahayd ama waa waxaysmi lahayd way meel mari lahayd laakiin uun duruufo jiray ama amniga xaqiisa ha ahaato ama duruufo dhaqaale ha ahaato ama markaa ninka liidarka ama meesha joogay oo siyaasiyan waxa kan maaragtay ama aan u bislayn ama aan ka daacadahayn ha u dhacdo ama dana kale oo gaar ah kolley mar walba istaako la imanaya laakiin dhibaatooyinka imanaya waxa ugu badan taa caamka ah oo Soomaaliya wada qaba bay waa gartay waxaa tahay gudoomiyihii guddiga doorashada iyo diyaarinta dimuqraadiyadda ee Puntland marka mudane gudoomiye maxaad u sheegi kartaa dadka haatan ku daawanaya goormaad isleedahay doorasho qof iyo cod ah Puntland way ka dhici kartaa wala gaaraya shaqayna u baahan tahay arintaas haddii gacmaha inta la laabto la yiraahdo waanu gaari doonaa ama waan sugi doonaa waa garan kara tan laftiina afadhidaan xafiiskan fiayooda maanta inuu fadhina shaqo iyo waajibaadida ka saaray dadda gacmaha inta laabataan tirada waa la gaari doonaa wax walba waxay u baahan yihiin shaqadu siday ku socon lahayd sidii lagu gaari lahaa meeshaas la calaamadsaday in la gaaro marka waa la gaaraya waxaana lagu gaarayaa in la shaqeeyo shaqadiina loo idmadana inaanu qabanaa loo baahan waa tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Diriye Samatar oo nagu soo booqday daartan VOA-da ee magaaladan Washington.